بالله نوقف بريابان كوري اللي ما واحد صعبتنا دولة صعبتنا أنا ضبطها دقنو إذا دور عشان سووا رقم si degdeg ah waa inay dadka ugu timaada hay'adda barakacayaasha qaranka hay'adaha ilaada samafal baanu ka shaqeynaa ee dalka jooga xukuumadda waxaanu leenahay hay'adahaasi haddii ayna ummadda waxba u qabanin waa in laga masaafuriyaa dalka dayacaadda laftigeeda baarlamaanka dalku kama maqna waxba canaantii iska reebi mayno waa qodobka koowaad barkhad ma noogu ogaal badnaa horta isku wada dulnoola wala kala dilacsaday dirkiyo laftiyo dadakan idiitan kamalaha indhaha iyagana waxaanu ku aragnay dacaruurtaa yaryare bartaa dhaxantaa jiifa siigadaa dhacaysa ay ku dhacaysay iminka muddo wiigaba dadkani dhowr iyo 10 sannay halkan deganaayeen baaqayagu wuxuu yahay ka xildhibaanna ahaan mas-uuliyad baa naga saaran shacabka gaar ahaan danyarta inaan u hadalno inaan u doodno wayna damqayaan bartan waxaa joogaa waa hooyooyin isugu jira agoomo dad dhimarka ka xanuunsanaya dad runtii curyaamiina dad goblana iminka islaantii ugu dambaysay waxay sheegaysaa walaasheed bartaa inay buulkaa ku gubatay wax qalbiga taabanaya waxa ka sii daran dabeel xagaaga dhacaysa iyo siigada inay bannaanka u hooyanayaan dadkaas waxa markaa baaqan yahay aanu barta kula hadlaynaa qaranku wuxuu leeyahay hay'ad la yiraahdo hay'adda barakacayaasha qaranka hay'addaasi miisaaniyad bay leedahay maamul bay leedahay madax bay leedahay waxa qaranka u xil saaran tahay arrimahan inay wax ka qabato waxaanu baaq degdeg u diraynaa gudoomiyaha hay'adda shaqaalihiisa maamulka iyo madaxda inay degdeg dadkan ugu yimaadaan inay goobta dejinayaan keenaan inay diiwaangelin u sameeyaan inay milicdaa iyo dhaxantaa dadka masaakiinta ay ka qaadaan waa hay'adda qaranka u xil saaran waxayna nabar ku tahay runtii iyo foolxumo dawladnimadeenna maanta wax la aqbali karayana maaha si degdeg ah waa inay dadka ugu timaada hay'adda barakacayaasha qaranka dadkan waa dad muwaadiniina hebel iyo heblo loo garanayo duruuftu ay qabatay dantu barta ay dhigtay dawladnimadu waa inay damaanad qaadaan nolosha dadka dawladnimadu waa inay dar yeeshaa dadkan waa xoog dadkani waa awooddii waa ummadda marka waxaan sidoo kale bartan baaq uga diraynaa cid kastoo muxsiniina qurba joogta ganacsatada dalka inay dadkaa la soo gaadhaan waxay dhaxantaa ka galaan hay'adaha idhaahda samafal baanu ka shaqeynaa ee dalka jooga xukuumadda waxaanu leenahay hay'adahaasi haddii ayna ummadda waxba u qabanin waa in laga masaafuriyaa dalka haddayna dadka mashaariicaha ay ka sheekeeyaan ay idhahdaan horumar baanu ka shaqeynaa ummadda yadaa tabaalaysan haddayna waxba ugu qabanayn xukuumaddu waa inay tallaabo degdega ka qaada markaa mas-uuliyaddani cid kale uma taallo mas-uuliyadda lama leexiyo mas-uuliyaddan cidda iskale ee dayacan ummaddaasi barta ku eeganaysaa waa hay'adda barakacayaasha qaranka hay'adda barakacayaasha qaranku waa inay si degdega iyo qaxoontigu u soo gaadhaa ummadda Soomaaliland meel kale inuu ka eegaynaa ma jirto madaxweynaha waxaanu leenahay fariinta xildhibaanada ayadaa dhagayso dadkaasi waa dadka aad mas'uulka ka tahay waa dadkaynu u wada dhaarannay waa dadkay tahay in la daryeelo waa dadkay tahay in wax loo qabto waa dadkay tahay inay dawladnimadeennu ilaaliso arrinta sii xoojinayana waxa weeye arrinta hay'adda barakacayaasha oo aynu u baahannahay inay yimaadaan liiska dadka helaan sidii dhulkii la dejin lahaa loogu heli lahaana in ka yar muddo 10 casho 20 casho gudahood iyadna lagu diyaariyo qodobka labaad aan ku daraya waxa weeye dayacaadda laftigeeda baarlamaanka dalku kama maqna waxba canaantii iska reebi mayno waa qodobka koowaad barkhad ma noogu ogaal badnaa horta waa qodobka labaad dhul la'aanta maanta dalka ka taagan isagoo dhulkii buuxo haddana halkaa lagu gubayo dad masaakiina waa arrin yacni baarlamaanka laftiisa waa mas-uuliyad baarlamaanka saaran weeye inuu nin waliba